soo dhawaada daawadayaal halkan uga warbaahinta Chess Media iyo Ismaaciil Xirsi Cigaalo idinla mar kale soo dhawaada qodobada wararka caawa idinku hayno waxa kamida baroortii ka baxday nimankii majeerteen iyo qodobo kale idin la wadaagaya balse waxa adiga laga rabaa subscribe iyo like iyo share intaaba inaad igu cimaamado waxa weeye intaana qodobada u gudagelin ba horta halkan ila daawaye inaan kan iyo wuxuu ku hadlaya marhum baa sawaabay ma jeerteen oo Puntland oo futadina xoreeyay oo aad shirata la ogeydeen oo ay wiilal kaga xirxirayeen ba maanta waxa u soo raacaysan mid cagdheer oo inta cagtu dheer laagtahay oo dantiisa ku wata wari Xamsa markii dagaalku ka socday gobolka Sool hal maalin uu ka hadlay atuu marxuumka iska dhigay maanta markuu uu saqiiray oo uu inaadeerkina lagu xukumay muxuu ahaayay in la soo qabto oo uu cadaadis la saaray cadaadis la saaray waxa shaqo ku xilkan ka eriyaya waayahay halka hadii aan kaga imaado arrinka inankaasi runiyo been wuxuu yahay adiga commentiga ku soo qoraya balse laakiin anigu aragtidayda hadaan ka dhigto waxa weeye maxaabiistan uu sheegay horta way jirtaa abaal daraduna way jirtaa balse aniga horta daaradu waa soo kaymid ama cagtu ha dheerato cag dheer ha noqdo ama khaatuma naas dheer ha noqdo ama ha noqdo bariya culus waa isku mid anigu ninka ahaya meel kasta ka soo duulay aniga waa nin igu soo duulay waxa weeye aniga horta meeshan dalka sheeganaya dadku meeshay doonaan ha noqdaan ama Soomaaliya ha qabtaan ama Puntland ha qabtaan horta anigu dhulkan leeh ka ku dagaalamayna dhulku kan iminka doonayaan waa dhulka waxa jira ninka ma jeerteen waxaan ula cabaadayo iyo kuwa kale aan idin tusi doonaba waxaan idin tusayaa waxaan ugu run horta maxaabiistu iyagu waa kuwan maxaabiistu markay kuwan yihiin horta maxaabiistu run ka sheego iyagu deeg waad aragtaan marka ay kuwan yihiin anigu waxaan sheeganayaa dhulka iyaguna dadkay rabaan dadku yeelkii meeshu doonaha qabto ama ha cag dheeraad ama ha naas dheeraad ama bariya culus ha ahaado anigu dalkana sheeganayaa leeyahay kuna dagaalamaya haddana ku dagaalamaya iminkana ku socda weligeena laga qaadima markii hore waxa weeye dad Somaliland ayaa naloo soo dhaxraa laakiin maanta waxa shaaca ka cadaatay in ay dagaalkan horta Soomaaliya ka dambeysay in ay markii horeba si dadbanaysto soo ugu jirtay in ay qabaa'il iyo beelo iyo wax soo adeegsadeen annaga nagama daahnayn balse laakiin annagu waxaan u tuleyn tacabka iyo gobolka iyo dadkii ku noolaa iyo inay burburaan dad baa u yaqaan dhulbaanta uu meeshii tago madiga dhulbaanta ku dhacay hawiya degan xitaa gobolka Sool xaafadana barxleel yahay ka degan yahay ninkaan aqoon intaas markay dhacday maanta waxa weeye dagaal la soo gurtay ayaa la sugu iman doona haddaba waxa weeye ninkaaga ma jeerteen maanta 2025 ka dib uu yeeyay dhulbaante ee qaadaya heestii inaga isku wacnayna maxaad iiga wareegtay aniga horta maxbuuskan ka haya dib waxaad iigu iman kartaa ma garanayo maanta waxaad su'aali kartaa maxaabiisha isku dhaafsan karno ma garanayo waxa weeye kuwa la qabtayna aniga maanta gobolka Sool Somaliland kamid ah ku xidhay kuwa anagu hayana Somaliland bay ku xidhay balse laakiin adigu halkadii iigu iman ma af Puntland baad igula hadlay ilaa markaad imanaysid waxa beesha Ciise oo soo gurmatay beeshii Hiblaayo soo gurmatay anigu maanta ma beel baan ka aqbalaya Somaliland baa leeyahay Soomaaliya wada hadallo wala sugu iman kara wax ka sokeeyana ma ogoli kuwana iyagoo halka ku jiraba heshiis ka dhici doona sababta dhulbaanta ma taqaanid waa waxa uga daba ooyaysa kharashka iyo maalka iyo dhiigga iyo hubka iyo raggu kaaga galeen ee aad maanta aad uga daba ooyaysa waxa weeye aqoon la'aan ka haysi 1900 iyo dhowr iyo 10 kii nala duuleen annagoo hartiga kale ee daarood kale nagula duuleen oo adduunkii iyo hubkii ay hayeen nagala soo qaadeen markaasay markii dambe iyaga ku caayanba doqonkii ogaadeen ha dawlad laga qaad geerahagoogana yaa soo qaaday yaa soo dhicay ninkii khiyaamada weysha keenay dee loo garaya gabaygaas u badib u dhigeysanaysa halka iyada ka gudub waa war hor u dhacay waxa weeye dhulbahante aniga gacantaydu ku jira waanu ila leeyahay dawladda Soomaaliland wixii diidana baryi maayo ee hadda waa ninka diida baryi maayo waxa weeye Soomaaliya maanta dan yaro kooban bay ka leedahay waxana wadooyin la dhagax dhigay guriga la dhagax dhigay bahalkii la dhagax dhigay danta kaliya hel la leeyahay wad iska garanaysaa taa marka ka imaado danteedu goortay dhamaanaysa ma sii foga waa xilliga doorashada marka dhamaato dantii ay Soomaaliya lahayd way dhamaatay waxana ballan qaadaa la yiraahdaa Soomaaliya miyay hore wuxuu siin jirtay
intii dagaalku socday miyay wax siin jirtay intii ka dambeysay miyay wax siin jirtay miyay u iman jirtay waa maya qof walba danta laga leeyahay unbaa laga dhex arki karaa 9 jeer bay u tageen iyagoo garaadada iyagoo waxa weeye wax dan howga soo fushay may jirin weli ka ogaadeen maanta se waxaan idin sheegayaa siyaasi matala dhulbahante oo ku matala siyaasad ilaa wada garanayna waad farqtiriseen nin maanta xafladda ka soo qayb galay iyo nin joogay iyo nin xataa soo hadal qaaday iyo nin hambaliyay ma aragtay siyaasiyiinta dhulbahante war wada naqaanay markayna siliyeen wasiir soo noqday maxaa sheegay madax sare soo noqday anigu fiima quujan halkan ku arkay fiima quujan bari baan xildhibaan anagu ka dhignay xildhibaan gole deegaanadiyana oran xildhibaane aan golaha deegaanka qolada qashinka aan u dirno ma garanaysa ee gobolada xaadha ee maamushada qolada iskurgooyinka qashinka qaada ayaanu mar ka dhignay markaana reer bay deeyadu ku timi si kootaba loo siiyay cod laguma soo dooran laakiin ragga dee maanta anaga agteeda sharaftii karaamada kale waxa weeye xiir faratoon oo kale cod iyo qof baa lagu soo doortay shacabka gobolka Sool baa soo doortay uuna ku fadhiya waana ku joogaa rag badan oo isaga dee tusaale soo qaadanaya waa rag badan oo kamid yahay baa dee tan ku fadhiya codkii gobolka Sool oo maxaa sheegay dhulbahanta loo habar jecel codka gobolka Sool muu yaray halka marka inta kaga imaado anigu waxaan ku qabsanayo waan garanaya waana ay qorshaysan tahay adigu markaad maanta u barooranayso dhulbahante maxaad kaaga meel yaala wad aragtaayo wax allaale iyo waxa lagugu jawaabina wad garanaysaa wax allaale iyo wax maanta uu ku og yahay iyo wuxuu ku hayo aan ka ahayn inaad ku gudubowday mooyaan xaraam taa iyada ka sugi wax saan idin leeyahay buraama hadima baa la yiraahdaa qudinku ku dhici doontaan mooyee waxaan arkay marka qaar saawiya wala hore kuwa garoowe iyo qaxoontiga yaaliya kuwa dhaawacyada la iska raraynaa waan of gareynaynaa wardi duca iyo habaartoona idin kama baahna imankee marna badna Soomaaliland bay joogan badna wadi ka arkay intiirada mucaaradka inay Soomaaliya u gashay siyaasiyiintana saacadan dantooda iyagu kama dhaxaragto kuma jiro saayid sheegayo nin dhulbahante oo saameyn wadanka kule dib wada garanaynaa hadii la xaqiina Axmed Karaash baa dad joogo garanaysaa حاجة يجندي على خليفي وحاجة توسية بهاي سياسي تجوا وينا إن يوذكرنا صاحب فراتون نين كلية أو كهالي أو بيرهان كتير قرال حتى صار ينشر هو معارضة أنا كنا معارضة هو محافظة هو بدلان شوي هو صومالي شوي تونا سياسة لحان شاف مرة وحكلوا ترى أنا ذكرت بقى ورقدم أذكر كيسان حلبانا تريد ده كان كم مقطع الوتري أيام مانتا والصحافة ده صوص صارين بيكون صوت قرال نينكا رئيس الوزراء هاي إسكا هذلي برضو هذا اللي سودي تيس كمان هذا واللي سودي نينكو مركوير مقرأة حوارنا يقدر يوقف بلادنا محمر إياه وحوي يقف مركو سيدنا وكليه هاي واحد تلو حيل لا درته وكذا عد وقتها لكن وان شرادها هو سيلا ما إيجو ما نأركو حمزة عبد البر هذا الجزء كذا واقع حس الشيخ محمود تبغى الجزء سودي بي ومدحوينين لو يقول يوكو عديه halka hada madaxweynuhu waa kii shalay toole xaqiisa dambe ka lahaa gobolka Sool diyaaradu Soomaaliland heshiisiye hadii aad tagtay waxa weeye arrinkan ninkani waa nin la dirtaa waana nin soo qorshaystay isagu markuu madaxweyne ku-xigeenka ka dhigay maxay daarado dhan uga cawaadayay lamaba filin xitaa inuu madaxweyne ku-xigeenka ka dhigi doono hebel marka waxa weeye hadalka uu yiri waxa ahayd bishanaad martiqaadka gobolada maamul goboleedada ayay ku jirtaa khaatimo madaxweynuhu saasuu ilaa ogol yahay taasiyadu yar fashilaadeeda madaxweynuhu ninaan kula socdaalkan buu iska dhigayay bal haddaba waxa weeye aragtida ay ka qabaan xildhibaanadan oo cid walba leh dii waxay ka qabaan inay mamnuuc ka tahay xitaa inay soo taagto iska daayo waxay yiraahdeen burburka dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed isagoo iminka ba jirta inay hadda burbursanayba أنا waxaan u arkaa xildhibaan riyoonaya laakiin dib mushaarkooda shaqaysanayaan anaba deeqar ilaahay saaq baan halka u joognaa annaga kuwaas dee waraguun dib mushaarkooda shaqaysanaya ugama ximin nimba meel buu shaqo tagay Mareykan rag baa ka shaqeeya oo xildhibaan ka ah meel kasta way joogaan dee kama ximin mushaarkiisa shaqaysanaya laakiin waxaan ka xumahay inuu yiraahay reer hebel baan ku metelaya annaga naguma metelo metelaaduna wixii cod lagu soo doorto maalin dhow aanay arki doonaan halka ay ka soo jeedaan iyo meesha ka dhasheen
cod markay timaado iyo qof waxaad arkaysaa in la xaadxaadayo doorasho cod iyo qofa say u dhici doontana ma muuqato khiyaamo uun daaroodunbaa meeshii aniga iga muuqatay oo in daarood dhammaantiina la qaybqaybiyo waxna mucaarad laga dhigo waxna la iska soo horjeedo waxna la adeegsado halkaana nin hawiyaaguun ka soo baxo sidoo kale waxaa la sheegayaba in meesha la leeyahay nin reer Sheekh Saxaaqa ayaa loo qorsheynaya haddii loo qorsheeyo xitaa waxba nagama gelin qaar reer Sheekh Saxaaqa wadda halkaa weligoodba ku dhaqnaa waa jirin maxaa sheegay madaxda dee Jabuuti waa ka midba reer Sheekh Saxaaqa intaa waxaan kusoo gebagabeynayaa muuqaalkeenii habeenimo subscribe-ta iyo like-ta iyo comment-ida share-ta maxayna haystaa